salaamullaahi calaykum akhyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan dagaalkii ka soconaya gobolka bariga dhexe waxuu u muuqanayaa saacadihiisii ugu dambeeyey inuu ku jiro hadda waxaa xaqiijiyay dowladda Iiraan in ay la soo xiriireen dhowr dowladood oo waaweyn kuwaas oo codsanaya in dagaalka ay joojiso oo ay wada hadal aado xabad joojin rasmiyana lagu dhawaaqo yaa ka mid ah dowladahaasi barnaamijka ayaan kuugu sheegi doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii maanta duqeyn ba'an ay ka dhacday wadanka Sacuudiga ilaa iyo 9 diyaaradood oo drone ahna rubcul qaali saxaraha la yiraahdo lagu burburiyay oo hadafkoodu ahaa in uu gaaro xarumaha saliidda ee waaweyn ee Sacuudiga waxa uu dareemay danihiisa gobolka bariga dhexe inay baaba'ayaan sida daraadeed caawa waxa uu taleefanka kula xiriiray hogaamiyaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxana uu ka codsaday intii la oran lahaa Trump dib u gurasho ayuu sameeyay in uu xeelad diblomaasiyad isticmaalo oo dagaalkan soo farageliyo haddaba arrintan waxa lagu magacaabaa marka la joogo dunida diblomaasiyadda waji badbaadashada ama wajiga oo laga badbaadsado waaqaca dhabta ah iyo waliba fashilka dagaalka warbaan ka sii doonaa sida arrimahan caawa loo fasirayo guud ahaantiiba nimanka Iiraan ahaa duqeyn aan kala joogsi lahayn ayaa hadda ku wadaan meelo kala duwan oo kamid ah Israa'iil xarumihii la socodka dayax gacmeedyada nidaamkaasi ardaadiqada laga dhigay dalkii Bahrain ahaa boqolaal diyaaradood oo droonisa ay leeyihiin waan ka hortagnay Iiraan caawa waxay isticmaashay gantaal aad iyo aad cajiib u ah oo la yiraahdo Khaybar Shakin gantaalkan iyo waliba waxa uu ka dhigan yahay isticmaalkiisana waan kula wadaagayaa waxaan sidoo kale eegi doonaa galaangalka caawa soconaya hadalka ka soo baxay dowladda Cumaan oo 2 jeer waji gabaxay ay la kulantay caawa aarsatay Turkiga oo laga baqayo dhabarka inuu u jeediyo NATO dowlado waaweyn oo indhaha ku soo taagay bariga dhexe sheekadiisana caawa waxay u ekaatay dhaxalkii ninkii bukay rag kala duwan oo aan gobolkaasi shaqo ku lahayn ayaa ka talinaya xilli carabta ay taagan yihiin talow yaa mar naga istaajiyay gantaalaha dowladda Iiraan Cabdicasiis Barre wayaan ahay qodobadaas ayaan ku dul mari doonaa Trump hadaladiisa waxay ka dhigan yihiin caawa ninkaasi kale uma taqaanida waa faanay muxuu sheegay waa kula wadaagi doonaa Mujtaba Ali Qabani ma waxa uu noqday boonafartoomada loo soo diray wadanka Iiraan marka la magacaabay iyo xaaladda dagaalka laga shaqeeyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump caawa muddo dheer oo 11 maalin uu dagaal kula jiray dowladda Iiraan caawa waa ishaan waaye odagay waxaana ay u ekaatay dagaalkan cadaadis dheer inuu kala kulmay isla markaana dowladihii saaxiibka la ahaa uu gobolka ka dugsanayay ayaa qayladhan af labadii furtay markii dowladda Sacuudiga maanta dhowr jeer ay ka badbaaday wax lagu tilmaami karay musiibo dhaqaale oo bariga dhexe ku soo socotay taasoo haddii ay dhici lahayd dalka Mareykanka iyo waliba dunida reer galbeedka ee wajihi lahaayeen mashaakilaad waaweyn Faransiiska caawa isna lug dhulka waa dhigi laayahay oo ninka Emmanuel Macron ahaa aqalkiisa madaxtooyada ee wuxuu fadhiyaa Paris taleefanka ayuu haystaa cid walba ayuu wacaya uu leeyahay war dagaalkan Iiraan haddii aan la joojin masiibo ayaa ku soo socota guud ahaan caalamka waxaan u baahanahay xal degdeg in laga gaaro dagaaladan dhacaya iyo waxa hadda taagan haddaba maxaa dhacay madaxweyne Trump ayaa cadaadiska carabta markii ay ku badatay halisna ay galeen ceelasha shidaalka Sacuudiga waxa uu wacay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku yiri nin weyn oo dagaal galay oo dawlad inta la eg continent state ka kooban oo dhaqaalaha aragta ku fadhisay oo dunida ka heebaysanaysanahay dagaalkan ka dhacaya wadanka Iiraanna waan ku dhigbaxaya marka waxaan u baahanahay in dagaalkan soo farageliso oo la joojiyo odagii Putin ahaa isna waa ka faa'iideystay wuxuu leeyahay si dagaalkan degdeg loogu joojiyo kan Ukraine waa inaan wax iska dhahnaa laba qodob oo meesha la soo qaatay isla markii warkaas warbaahinta ay loo soo dusiyo oo la sii daayay iyadoo aan wali lagu dhawaaqin dagaalka in la joojiyo ninkii Trump ahaa wuxuu ka soo muuqday warbaahinta wuxuu yiri nimankan Iiraan la yiraahdo waa dad nugul waa sidoo isaga leeyahay ma astaahilaan ba in 5 isbuuc aan la sii dagaalano marka
hadafyo badan ayaa xaqiijinay oo dagaalka ku saabsan marka waxay u muuqataa buu leeyahay dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan inaan isaga joojino muxuu Iiraan ku yiri kow ciidamadeeda badda waa kuwa nugul wax ciidamo cir oo ay meeshan ku hayaan oo Mareykanka u babac dhigi kara ma jiraan wuxuu leeyahay kaydkoodii gantaalahana guud ahaantii waa burburinay sidaas ayuu isaga sheegay laakiin arrinta kale oo la yaab kale ma taqaan caawa Iiraan meel kasta oo kamid ah bariga dhexe garaacaysa markuu leeyahay kaydka gantaalaha burburinay bariga dhexe nimankaasi garaacayaan haddii ay noqon lahayd Israa'iil haddii ay noqon lahayd wadamada Carabta ninkii Sacuudiga ahaa Maxamed bin Salmaan ahaa maanta halis uu galay ceelasha shidaalka waxba ka dhici gaaray 1 milyan oo barmiil maalintii xarun soo saarta ayaa 9 daroon lagu weeraray inta aanay gaarina rubcul qaali saxraa la lagu qabtay haddii marka arrintaa dhici lahayd Trump iyo bariga dhexe mushkilada ku dhici lahayd caalamku waxa uu gali lahaa masiibo dhaqaale oo weyn taas oo ekaan lahayd in qaanuunka adduunka uu lumo marka odaga Putin waxay arrintaas dhacday dhinaca kale dawladda Iiraan goor dhaweyd hadashay warbay soo saartay telefishinka dawladooda ayaa lagu baahiyay wuxuu leeyahay waxaana la soo xiriiray wadamada Faransiiska Shiinaha iyo Ruushka waxay yiraahdeen dagaalkan joojiya oo wada hadal aada annaga hal shardi aan ku xirnooyay in aanu dhici doonin damaanad qaad buuxa oo ku saabsan in weerar dambe Iiraan lagu soo qaadi doonin waa meeshii ahayd labadii nin markay isdagaaleen oo cid kale celisan la waayay oo la isku baabay ayaa mid kamid ah wuxuu wararka kala celiyaan maqlay kii kalena wuxuu yiri aniga xataa inaan maqlaan mooday xaaladda Iiraan Israa'iil iyo Mareykanka caawa halkaas ay taagan tahay oo mid kasta wuxuu leeyahay Ruushka iyo Shiinaha ma leeyahay ragga hal kala qabto Iiraan waa leedahay Mareykankana waa leeyahay caawa horta halkaas ay ku biyo subat dhinaca kale iyadoo arrinta taagan hadda oo kula hadlayo magaalada Dahraan duqeyna ka socota waliba aad u xoogan oo istaba taala waa saacadaha karka iyo kuleylka leeyahay arrinta nin kasta wuxuu leeyahay liminta u dambaysa adiga qaado xaaladda waxa uu leeyahay guulo fara badan adiga la hooyo marka dagaalka waan aqbalna xabad joojinta la yiraahdo ninka dhaawacaysa meedkiisa qaatay ninka Sisleeya marka Iiraan waa dagaalamaysa Israa'iilna waa dagaalamaysa Mareykankana waxa uu duqeynaya dawladda Iiraan hadda jasiiraan eegaya waxa leen marka la yiraahdo Xaras Athawri Iiraan oo ilaalada kacaanka mawjadii 3 ee howlgalka ballanfurka xaq ah ama runta ah ayaa qaybtiisa afraad ayaa la beegsaday waxay leeyihiin saldhigyada Mareykanka kuwa Israa'iiliyiinta waxaan sidoo kale la haleelnay bay leeyihiin magaalada Tel Aviv ahayd gantaalka la yiraahdo Khaybar Shakin waa kii maalmihii ugu dambeysay ay ka sheekeynayeen Iiraaniyiintu ay lahaayeen lagama hortagi kara kan oo mushkilad baa dhacaysa waxay intaa ku dareen in ay leeyihiin waxaan gaarnay sidoo kale in aan jajabino oo aan duqeyno aan cardaadiqada ka dhigno sida ay leeyihiin Iiraan xarumihii la socodka dayax gacmeedyada dawladda Iiraan ee ku taala magaalada Dahraan sidaas ayaan yeelnay leeyihiin isla jasiira qaybta wararka degdega ayaan eegayay waxay leeyihiin dawladda Bahrain ahayd 100 saaruuq ayaan hadda burburinay iyo 173 daroon oo lagu soo weeraray gudaha wadankeena waxa ay leeyihiin arrintan waxa ay ka dhigan tahay weerarka dawladda Iiraan ee dalkeena ku hayso aad bay runtii u awood badan yihiin waana ka hortagaynaa Iiraan sidoo kale warbay hadda soo dhacayna waxay leedahay waxaan weerarnay bartilmaameedyo Mareykanka oo Israa'iil ay ku leeyihiin gudaha dalka Kuwait halkaas oo aan cashar u dhignay afayeen u hadlay ciidamada gaarka ah ee Iiraan ee la yiraahdo Qatamul Anbiya ee militariga ah waxay leeyihiin waxaan howlgal wada jira ku qaadnay xarumaha Mareykanka ee dhulka Falastiiniyiinta ku yaala waxaan 10 diyaarado nooca gaarka ah aan ku tuurnay leeyihiin koonfurta dhulka Falastiiniyiinta laga haysto waaxda difaaca hawada waxay soo rideen saaruuq cruise ah oo dawladda Dahraan lagu soo tuuray waxaan sidoo kale weerarnay leeyihiin goobo gaara oo Mareykanku ay ku diyaarinayeen howlgallo ay doonayaan wadankeena inay ka fuliyaan gudaha wadanka Kuwait marka waxay leeyihiin annaga nalama qaldi karo wax kasta waan helaynaa Kuwait oo runtii hadda hadlaysa howlgalkaasi waa xaqiijisay waxa ay leedahay dhowr gantaal iyo dhowr diyaaradood aan soo ridnay wararka daqiiqad baa uu soo dhacaya nin kasta waxa uu leeyahay dagaalka intaan la gaarsiin jabka ugu dambeeyaan kugu dhacin dhinaca kale markii la fiiriyo waxa la leeyahay qiimihii shidaalka
ayaa hadda hoos u dhacay maalmihii ugu dambeeyay dagaalkana uu aad u dhacayo gacanka hormus uu xirmay shidaalka aad buu u socday dowladda qatar waa tilahayd halkii barmiil $200 uu gaaraya $90 buu hadda joogay laakiin daqiiqadaha hadalkan la sheegay durba waxaad moodaa hoos inuu sii dhacaya $88 ayuu halkii barmiil maraya caawa sida telefishinka Al Jazeera waaxdiisa ama qaybtiisa dhaqaalaha ay qorayaan dhinaca kale garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad warbaa isna ka soo baxaya waxa leeyahay gantaalaha difaaca hawada ayaa ka hortagay weerar la soo qaaday Trump ruushka durba waxa uu gaaray mid kamid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan Trump waxa uu leeyahay waxaan darsayaa in aan qafiifiyo cunaqabataynta shidaalka ruushka aan ku hayo taasoo xitaa sida la socoteen dowladda Hindiya oo cunaqabatayn ku saaray dhinaca kale gobolka bariga dhexe caawa lagama sheekayn karo wargeyska The Hearts la yiraahdo Israel ka soo baxa waxa uu leeyahay Israa'iiliyiintu caawa waxay diideen hindise dowladda Faransiisku ay soo jeedisay oo ku saabsanaa dalka Lebanon in laga joojiyo dagaalada iyo duqeymada Israel waxay soo jeedisay guud ahaanba xalka mushkiladaas inay ku xiran tahay hubka oo laga dhigo Hezbollah isla markaana laga fogeeyo goobaha talada ee wadankaasi wali Lebanon duqeymo ayaa ka soconaya dowladda Sacuudiga waxay leedahay waxbaan burburinay Iran 40 qofood baa caawa ku dhimatay dooniyihii gacanka hormus dhaqdhaqaaq ayaa halkaasi ka socda saacadaha soo socda ayaaba laga yaabaa in la qaato xabad joojin dagaalkii muddada dheer socday laakiin su'aashu waxay tahay ma Mareykanka ayaa guula gaaray ma Iran ayaa guula gaartay ma Israel ayaa hadaafteeda xaqiijisay mase Khaliijka ayaa runta loo dhacay carabtu wixii ku dhacay maxay ka baran karaan dagaalkan Allah ilaahay bishan Mars la yiraahdo dunida taariikh bay u ahayd sanado badan laga sheekayn doono wax badanna la darsi doono si aad macluumaadkan iyo taxliilaad kala aad u heshaan